السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني وذا سلامي دمانتينا ميل والبعض وذا جوكتان maanta waxaad soo bandhigaa warar laga yaabo in aad weligaa maqlin qaybta 19 daawasho wacan. Karen Jobio waa naag u dhalatay dalka maxaa dhacay warnaak hadihin lagu dhahay maxaa naha marka haween ma dhahdid haween ha okay. Karen Jobio waa haween u dhalatay dalka Faransa. Karen waa qof deeqsi ah, mar walbana waxay jeceshahay inay dadka caawiso. Maalimaha ka mid ah pizza ay maqaayad ku cunaysay. Markay cuntayna inta ka hartay pizzada bac ay ku soo qaadatay. Iyadoo wadada marayso waxay aragtay nin maskiin ah oo qashinka cunto ka raadsanayo. Ninkii ay u soo dhawaatay cuntadii ama pizzadii ay siisay. Kadib waxay iska aaday gurigeeda. Maalinta labaad iyadoo wadada marayso ayaa waxa ku soo orday gabar. Waxay ku dhahday waxaan kugu arkay joornaalka adigoo qof maskiin ah cunto siinayso, laakiin qofkaas aad cuntada siisay qof maskiin ah ma ahayn. Wuxuu ahaa jilaaga caanka ah Richard. Waqtigaas filin ayuu meesha ka duubay, adigana waxaad u maleysay qof maskiin ah. Saas ayaa filinkii ku gashay. Laba wiil oo walaalo ah oo u dhashay dalka Pakistan waxay qabaan jiro oo la yaab leh. Maalintii intay qorraxdu soo jeedo way caafimaad qabaan. Hadday qorraxda dhacdana ayagana way dhacaan. Macnaha qorraxda hadday dhacdo oo maqrib la gaaro dhaqdhaqaaq dhan ma leh. wax ma arkaan, wax ma maqlaan, ma hadli karaan, xitaa ma soco karaan. Takhaatiirtu waxay is dhaheen qorraxda ayay energy ka qaataan. Laakiin waa la tijaabiyey taas, qol oo qorraxda soo galaynin ayaa lagu xiray oo mugdi ah. Normaal ay ahaayeen, caadi iska ahaayeen, laakiin maqribkii markii la gaaray way dhaceen. Takhaatiirtu waxay dhaheen weligeena lama kulmin jiro oo saas oo kale ah. Ilaa iyo maantana lama ogo sababta ay saas u yihiin. Joseph Stalin isagoo xafiiskiisa fadhiyo maalimaha ka mid ah ayaa waxa u yimid shaqaalihiisa ka mid ah. Wuxuu ku dhahay nin ayaa banaanka taagan, wuxuu rabaa inuu kula hadlo. Wuxuuna leeyahay mustaqbalka ayaan wax ka ogahay. Macnaha wixii mustaqbalka soo socda waan ogaa karaa. Joseph Stalin wuxuu ku dhahay u tagay ninkaas qoorta ka gooy. Waayo mustaqbalka hadduu wax ku ogaan karo, hadduu inta imaado in aan dilaayo ayuu ogaan lahaa. Gabar oo u dhalatay dalka Holland waxay dalxiis u aaday dalka Spain. Waxay rabtay inay ku soo boodo boondo oo dadka ka soo boodaan. Xiriga ayaa lagu xiraa waa soo boodee. Ninka oo meesha ku shaqeeyo afka Englishka si fiican uma yaqaano. Isagoo xiriga u xiraayo ayuu wuxuu ku dhahay no jump. Macnaha haboodin ayuu ka waday. Laakiin gabadha waxay u fahantay ama waxay u qaadatay inuu dhahay now jump. Macnaha hadda bood. Way booday, dhulkay ku dhacday, way dhimatay. Wiil oo u dhashay dalka Brazil maalimaha ka mid ah wuxuu isku dayay inuu baaskiil xado. Laakiin guriga oo baaskiilka ka soo xadi rabay waxaa degnaa nin sameeyo tattoo. Macnaha ninkaas shaqadiisu waxay tahay dadka jirkood ayuu wax ku sawiraa ama wax ku qoraa. Wiilkii isagoo baaskiilka xadi rabo ayaa ninkii qabtay. Wuxuuna ku ciqaabay madaxiisa hore ayuu wuxuu ugu qoray tuug ayaan ahay. Weliba video ayuu ka qaaday, videogan wuxuu soo saaray Facebooka. Dadka qaar way ka xumaadeen arrintaas waxayna dhaheen inaad saas samaysid ma ahayn. Waxaa laga rabay inaad booliiska u dhiibtid. Laakiin dadka qaarna waxay dhaheen uu istaahilaa. Ugu dambeyntii wiilka familkiisa way dacwoodeen, booliiska ay u dacwoodeen. Booliiskii wuxuu soo qabtay 2 nin, midka oo wax duubay iyo midka kale oo wax ku qoray madaxiisa. Wiilkana lacag ayaa loo aruuriyay si oo looga tiro qoraalka madaxiisa lagu qoray. ciidanka Sovietka markay weerareen Berlin waxay qabteen askari ka mid ah ciidamada Jarmalka. Markay qabteen waxay dhaheen biyaanadan garaac, haddaad joojisidna waa lagu tooganaa. Askarigii 22 saac ayuu biyaanada garaacay ilaa uu ka ooyo. Markuu ooyay ciidanka Sovietka way u sacbiyeen. Askarigii markuu maqlay sacabka wuxuu is dhahay bas way hadda waan jooji karaa. Laakiin markuu joojiyay biyaanada madaxa ayay xabad ugu dhufteen. intaas aan idin soo bandhigay, waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. Meeshan kore waxaa idinku soo baxayso su'aal videoga soo socda wadankee ka hadlaa, dalka Malaysia ama Spain. Labadaas dawlad midka aad rabtid in aan ka soo hadlo videoga dambe ku dhufo. Marka waxaa idinka codsanaa in aad share garaysid videoga. Like waxaas dhan iska dhaaf. Videoga kaliya share garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.